hore inta joogo ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore Axmed Cabdisalaan iyo wasiiradii hore oo wasiirka arrimaha dibadda oo hadda noo xiriirin hayo shirka iyo wasiirro kale oo hore siyaasiyiinta ururada bulshada iyo cid kasta oo shirkan ka soo qayb gashay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii furitaanka shirka iyo ujeedada shirka madaxweynihii martida loo ahaaba noo sheegay. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan halkaan mahadcelin iyo bogaadin aan uga diro dawladda Galmudug iyo shacabka reer Galmudug sida quruxda badan oo soo dhaweynta leh oo Soomaalinimada leh oo dadaalka badan ku jiro oo ehelnimada leh nagula soo dhaweeyay aan uga mahadceliyo. aad iyo aad baa loo dadaalay, aadaan ugu mahadsantihiin. waxaan bogaadinayaa shaqada fiican maamulkan cusub oo curdunka ah uu wado oo u istaagay inuu Galmudug meel fiican ay gaarto, dadkeedana ay gacmaha isqabsadaan. ayadana waa bogaadinayaa. bogaadinta kadib waxaan isugu nimid shir muddo dheer aan qaadanin inaan isu imaano. waa dareemi kartaan waqtigii lagu ballamay oo aan ka shaqaynay shirkan in la isugu yimaado iyo sida ugu dhaqsaha badan ay u suurto gashay waxay caddaynaysaa muhiimadda uu leeyahay shirkan wuxuu muhiim u yahay. waa shir wada tashi ah oo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay ku tashanayaan. waa shir ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto looga hadlayo maslaxadeeda, horumarkeeda, isdhexgalkeeda, siyaasadeeda, amnigeeda iyo dhaqaalaheeda. waa shir loogu talagalay dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka inay isku warsadaan maanta meesha ay Soomaaliya maraysa, iska warsadaan danahooda iyo shaqadooda iyo siyaasadahooda iyo mas'uuliyadda saaran ay ka sheekaystaan. arrimaha amniga laga hadlo, siyaasadda laga hadlo, dhaqaalaha laga hadlo, arrimaha bulshada laga hadlo, doorashada laga hadlo sidii loo wadaagi lahaa marxaladda maanta taalo oo kala guurka ah, sidii looga gudbi lahaa in laga wada hadlo. waa wax mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku xiran. waa wax dawladda federaalka ah aan xubnaha ka nahay oo dawladdanada ah dan u ah, ayna ku faraxsan tahay ay og tahay. waxa aan ka shaqaynaynana ay tahay wixii nidaamka federaalka uu noo ogolaa oo ahayd in la sameeyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay samaystaan wada tashi iyo wada shaqayn iyo isdhexgal iyadoo mid guud ay jirto. haddana sida uu madaxweyne Saciid u sheegay waxaa jiro si gaar ah iyo xaduudo iyo darisyo iyo maxay ahayd si la isu leeyahay. annaga dawlad ahaan dawlad koonfur galbeed waxaan daris leenahay, daris weyn baan leenahay, xaduud dheer wuxuu nagala dhexeeyaa dawladda Jubbaland, mid kale oo ka sii dheer asagana saasoo kale ah Hirshabeelle, mid kale gobolka Banaadir. intaba waxaan rabnaa in wada shaqayn joogto ah iyo xiriir dhab ah aan samaysano iyo isdhexgal bulshadaas ah oo ku salaysan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimahan caqabadaha ku noqday dadka Soomaaliyeed dhibaatada saamaysay oo shabaabka ah oo loo heli lahaa amni ay dawladahaas kulligood ay ku wada naaloodaan oo lagu wada shaqeeyo, ganacsi iyo isdhexgal fiicanna loo heli lahaa. bilow fiicanaan ka samaynay. 6 bilood ka hor waxaa Ilaahay noo suurtageliyey
inaan anaga iyo dowladda Hirshabeelle aan shirkaas iskaashiga ah aan qabanno guulna uu ku dhamaaday oon iska kaashanayna arrimaha amniga iyo daris wanaagga iyo ganacsiga si fiican buu noogu soo dhamaaday inta kalena waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraaho in iskaashigaas aan sameeyno markii aan intaas ka soo gudbo runtii maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxa weeye nin kasta oo Soomaali ah Soomaalida waxay aad ugu faraxsan tahay oo heshiis ku tahay oo hanaqaadkii dawladnimada ku dhiirigeliyay in waqtiga doorashada markii la gaaro uu waqtigii doorashadii ay dhacday nin kasta oo Soomaali ah wuxuu raba ha ahaado xilku raaha raadiyo wuxuu isku qancinayaa nin walba wuxuu leeyahay waqtigaada iska gaaban 4 sano dhamaanaysa waa sugaa marka nin kasta oo Soomaali ah maanta wuxuu diyaar u yahay 4 sano markay dhamaato inuu u diyaar garoobo ninkuu bedeli lahaa iyo ninkii soo noqon lahaa waa wax standard ah oo Soomaalida dhan ay heshiis ku tahay laguna wada faraxsan yahay runtii dawladda bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha dawladda galmudug oo martida aanu nahay dhammaan madaxweynayaasha kale baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug labada gole labada heer ee federaalka marti sharafta kale bulshada rayidka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof walba waxaan ku salaamay magaca iyo mansabka iyo brotokoolka oo halkan ku fadhiyo runtii waxaan jeclaan lahaa inaan si niyada oo kalsamiya u bogaadiyo madaxda iyo shacabka galmudug oo ugu horeeya madaxweyne qoorqoor ilaa iyo caawa waa laga sheekayn karaa wanaagga ee aan halkan ku aragnay laakiin waxa tusaale ay noogu filan tahay oo darsi noogu filan tahay midnimada iyo wanaagga iyo isla shaqaynta iyo isla buuxintu waxay dhali karaan wadan in horumar la gaarsiiyo waxaa ka horeeya hal shay waxaa ka horeeya horta wadanka in loo laxa jecloodo waxaa muuqata oo aan marqaati ka nahay reer galmudug inay u laxa jecloodeen wadankooda oo ay caqli iyo cilmi iyo effort waxay hayeen ay halkaan isugu keeneen hogaaminta madaxweyne qoorqoor iyo personalitiskiisa iyanu intaasoo dada iyo intaasoo horumar isku haayeen bogaadin gaar ah ayaan madaxweyne kaaga bogaadinaya waxa kale aan rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay madaxweynaha dawladda Jubbaland Axmed Madoobe oo runtii sidii doorashadiisu ay u dhacday aanan golayaashan maba dhicin laakiin aan ka soo qayb gelin asagana waxaan ku leenahay ka soo qayb gal wanaagsan taladaada iyo odaynimadaada waa u baahannahay adigana soo dhawow run ahaantii war badan ma la ii reebin runtii waxaan rabaa inaan 3 qodob kaliya aan dul istaago shirka ujeedadiisa iyo waxa laga filanaayo iyo meesha aan u soconno iyo waxa aan rajaynayno dhammaan waxaa cabiray madaxweynayaasha iga horeeyay qodobka ugu horeeya oo aan rabo inaan dul istaago waa qodobka dastuurka dhammaanteen waxaa halkaan aan isugu nimid oo isugu keenay waa dastuur dastuurkaanu waa shay ka dhashay colaadii waddankaanu galay kala aanbixii kala irdhowgii isku soo jiijiididiisii qof walba aniga waxaan laga tiro waxaan hala geliyo ilaa dhowr iyo 10 draft ayuu maray wixii laga badi waayay ayaa halkaas lagu qoray
dadka u haysta inuu yahay dukumenti iska caadiya waa dhaxalka aan ku wada joogno ilmaheennuna ay ku wada joogi doonaan waxay la mid tahay ayadoo famil isla dhashay kulligood intay waalidkooda ay u yimaadaan ay yidhaahdaan aabbow hooyow walaalkay iga weyn iyo walaalkay iga weyn shaki baan ka qabaa intaad nooshahay wax noo kala qor waxaas aan ku dhaqanno markaad dhimato dastuurku muhiimadaasuu leeyahay waxaa ayaamankan batay in dastuurka la duro waxaa lagu leeyahay waa qabyo dastuurku qabyo maaha waa turjumaad qaldan kelmadda ingiriiska draft waxaa waaye ilaa laga ansixiyo unbuu draft yahay ma ahee soomaaliya waxay isdhihi lahayd waystri jabuutiya laga soo bilaabay sida madaxweynayaashu u sheegeen ilaa haddoo muxuu ahaay senator cabdi qaydiid iyo tiimkooda waxay soomaaliya isdhihi lahayd ayaa halkaas la dhuudhuujinaya wax caqliya oo naga maqan oo bannaanka naga jira huma jiraan waxaa la yidhahdaa wuu iska hor imaanaa dastuurku ma iska hor imaanayo waxay ku xiran tahay in il naxariisle lagu fiiriyo waxay u baahan tahay in niyad wanaag lagu fasiro waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eedo lagu fiirin dastuurka haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan wixii ka dhimanna haddaa hawsheedu socotahay aan iimaansanno gaar ahaan waxyaalaha dastuurka aan ka dhaxlayno waxaa ka mid ah sida loo sheegay sistamkan federaalka oo aan haysanno mar kasta oo ay taladu maxoogaa naga warwareegto halka aan ku taagsannaho waa federaalka waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay dastuurkaas inaan iimaansanno oon wanaagsanno ayay taladeennu ku jirtaa sida dad badanoo yaqaan ay og yihiin aniga samafalkan ka soo shaqayn jiray dad baan wax u qaybin jirnay dadka marka safka la geliyo haddii safkaas loo hoggaansamo oo qof walba wakhtigiisa sugto oo qorraxda iyo dhibaatada iyo qolada safaysa iyo ay u dulqaataan hawshu fudayd ay ku soconaysaa laakiin haddii safka midgooyo oo wuxuuna xaq u lahayn ka doono oo mid kale halkan ka galo oo mid kale halkan ka galo waxa dhan waa isku dhex yaacayaan waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaha waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansanno haddaan dastuurka u hoggaansanno qorrax iyo dabayl iyo wax walba aan iskaga dulqaadanno waa waddan dagaal ka soo kabanayo laakiin waxaan hubaal ku qabaa oon ku kalsoonahay inaanaan isnacayn wixii aan ku wada hadli lahayn meel ayay noo yaallaan arrinka labaad doorashooyinka madaxweynayaashu waa ka hadleen adduunyada sideedaba laba doorashaa ka jirto waddan isku toosan oo wanaagsan oo taariikhdiisa la og yahay oo dadka musharaxiinta tabeelayaashooda iyo durbaanadooda ay soo qaadanayaan oo cid u baahan ay jirin oo dawladda keliya la leeyahay xoogaa dawladnimada inaadan mataqaanaa aadan dadka tartamayaasha ku xusul gelin keliya ee laga fiiriyo intaas doorasho noocaas waa jirtaa doorashada kale oo wadamada burburay iyo wadamada dhibaatooyinku ay ka jiraan ka dhaca hal shay saldhigu ah waxa saldhigu ah in lagu heshiiyo labaatankii sano la soo dhaafay wadamada nooceena oo ay doorashooyinku ka dhaceen oo ay ka mid tahay Afghanistan oo ay ka mid tahay Liberia oo ay ka mid tahay Sierra Leone oo ay ka mid tahay Congo oo ay ka mid tahay East Timor waxay doorashadoodu ku dhacday heshiis
heshiiskaasoo ah inay 4 kooxood ka heshiiso marka la leeyahay macnaheedu maaha in hal qol la isugu keeno laakiin inay talada heshiis ka yihiin koow cidda taladu gacanta ugu jirto sababtoo ah waxay hayaan dhaqaalihii imkaaniyaadkii awooddii amnigii waa loo baahan yahay ha ahaadaan heer gobol ama ha ahaadaan heer ka koreeya dadka xukunka hawada uga jirto oo raba inay kuraastaas ayaguna markooda soo fuulaan waxba kama duwana marka rifriigu labada kooxood kabtanadooda intuu isu keeno instructionska kala siiyo hadduu gooni qolo ula hadlo qolo kalena gooni ula hadlo dadkii shicibkii fiirsanayay way waswaasayaan waa in dadka xukunka raba iyo dadka xukunka haysta ay tafaahum leeyihiin waxa kaloo lagama maarmaana shicibkuna inuu raalli ka yahay oo wakaaladooda ha ahaadaano odayaasha dhaqanka ha ahaadaano culummada ha ahaadaano haweenka ha ahaadaano muxuu ahay mutaqafiinta iyo dadka mufakiriinta fikira waa inay waxa socda ayaguna raalli ka yihiin ugu dambeyn beesha caalamku waa inay legitimacy inay la dul joogto waaye baxaa waaye sababtu annagu Soomaaliya haddaan nahay waxaan xubin ka nahay ururo caalamiya United Nations ka kamida ururka carabta kamida kan islaamka kamida igada kamida dhammaan ururadaas waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno na qabanaya sidaas daraadeed ma rabno inaan sameeyno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkayaan inaan fallaaganahay oo aan taladeena gooni aan u dhiganay doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa muhiim sababtoo ah waa safety valve waa meeshii systemka laga neefinayay dhammaan madaxweynayaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo wixii intaas ka soo hara waa farsamo marmarka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn tusaale ahaan waxaa buuq badan ka jira hadda guddiga doorashooyinka waa xubin farsamo oo loo sameeyay inay farsamada doorashooyinka ay hayaan haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yiraahdo muxuu ahay waxaan ku dhisayaa 2 usbuuc $10,000 kugu baxaysa ikhtiyaarka inaad aqbasho iyo inaad diiddo adaa iska leh fuundi waxa kuugu male inuu kaala murmo عريشان كودسا دغخان كودسا شقadaas asagu male guddigaas hawshiisi waa qabsaday yaan la dhibin xaliimayay dhibka laga daayo talada annaga tashanayna maalinkii tala naga soo baxdo haddana ayagaan ku celinayna ama kii bedelan ku celinayna sideeda horta meel cidlaa in la iska qabsado oo la iska xagxagto ama la iska shakiyo waa gardaro qodobka ugu dambeeyo aan raba inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir waa caasimadii wadanka waa magaalo aan wada leenahay waa dawladnimadeennii waa saldhigeennii waa halka quruxdeenna iyo qaabdarradeenna labaduba ay ka muuqdaan in mar walba taladeeda aakhiru saaca laga wada hadlo horta waa nasiib darro dadka xamarne arintaas waswaas badan bay gelinaysaa nin aan saaxiibana hadda kor wuxuu yiri niyahow nin aad shirkad tihiin hadduu xisaabta ka leexleexdo warcaaw xisaabta maxaa soo xarooda war bari nooga dhig hadduu xisaabta ka leexleexdo ninkaas qaablaawo waaye kala baxa in matalaada xamar iyo maqaamka xamar saacadda ugu dambaysa sidii excuse loogu sameeynayo biraa laga hadli saadan baa laga hadli kana laga hadli last minute kale iskugu yimaado waa nasiib darro magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo shabaab marka la isku daro
waxaa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 bilyan sanadkii. waxaa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dowladnimada iyo caasimadnimada nafteeda ku soo gaara. matalaadu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meeshuu doonaba ha joogo. Soomaali dhammaanteen waxaa noo yaal inaan ka wada tashanno maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashanno. ummad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay, horaan u soo aragnay. gobollada koonfureed iyo gobollada waqooyi markii la isku dalaayay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dowladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen. waxa dhanba in ayaga lagu wareejiyey ahayd, waxba lagama tixgelin. maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla jooga bas. dowladdii markay soo burburtay salaamu calaykum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashtay, dowladaa la dhisay, waa ka warqabtiin. wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro, horaa looga socday. nimankaas inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihiin mise gar uma leh. gobolka banaadir waa caasimadii waddankoo ma goosanayso, laakiin waxaa ka suurtagala idiin sheegi, waxaa ka suurtagala inay dhahaan soomaaliyey canshuur noqotayaa iyo amri darro noqotayaa iyo culays noqotayaa 60 sanaan caasimadnimada soo haynee culayska ha nalaga qaado meel kale ha la geeyo. waxaa ka suurtagala inay dowladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dowladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysan dowladu kor fuushay inuu noqdaa yaa ka suurtagala. waxaa ka suurtagala in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo. arrinta banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca walada cayaarta maxay dhahan injury time, in mar walba injury time-ka la iska warsado. arrintaas waxa laga bedelo, caasimaddaas waa wada leenahay, aan wanaajisanno si aan raalli aan isaga nahanee maqaam aan ugu raadinno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.